kale mar kale waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan walaalahay soo dhawaada aad iyo aad ugu mahadsantihiin sidii fiican oo meeshaan nooga imaateen hadda codka waxaa u malaynaa dhag waa muudka waa ka baxay aad iyo aad u mahadsantihiin marka walaalahay sidii fiican oo meeshaan nagala soo qayb gasheen waa meel kaleeto ayna igu aqoonin oo aan iska cusub tahay laakiinse maalin kasto mawduuc dhammaanteen na wada quseeyo oo dhibaatadiisana haysato aad jeclahay inaan idinkala hadlo waana mawduucaas dartiis waxa meeshaan aa u furnay oo loo sameeyey hadduu ilaahay idmo midka hadda soo kama bixin midka haddeer soo kama bixin walaalahay soo caadi maahan okay maasha allah mahadsanid walaashay marka kusoo dhawaada meeshaan aa ugu magac darnay golaha geesiyada geesinimadan waxay ku imaataa qof kasta oo dantiisa maahane danta guud u istaagay anaha qof aan cabsanayn ma jiro laakiinse geesi waxaa lagu noqdaa markii adiga dantaada waxaa ahayn wax ka dheeraad ah u kacday marka golaha geesiyadan waxa uu macnaa waa qofkii danta guud u kacay wuxuu rabo ha ahaadee ama kii sadaqada u aruurinayo ku dhiirada ha ahaado ama ha ahaado kii qabyaaladda oo maanta mawduuceena noqon doonto oona waxa ugu weyn oo meeshaan loo fura ah darteed u kacay ha ahaado marka mawduuceena maanta waxaa waaye dhibaatada qabyaaladda waxaa la joogaa maanta taariikhda waxaa waaye axad maalin axad ah 18 bishii 11aad ama 18 November 2021 hijriyadan waxay ku aadan tahay 23 Rabiicul Aakhir 1443 ama 43 qof walba u yaqaan taariikhda waxa idinku sheegayaan wax kaleeto maahan aad taqaaniin qabyaaladda muddo intee la eegayna soo haysataa ee dalkeena iyo dhulkeena af Soomaaliga inta ku hadasho dhan meeshay rabaan ha joogaan sida ugu dhibaataysan yihiin insha Allah fiidiyogaana macnaha ma rajeynaa maanta oo kaliya inuu ahaado laakiinse waxaa rabaa hadduu ilaahay idmo maalmaha ka mid ah haddii aad dib u fiirsatid ama aad dib u fiirsado ama qof kaleeto u fiirsado in uu ogaado waxaan wax soo jirin ah inay ahaayeen dagaalkan meeshaan laga bilaabo oo qabyaalada ala dagaalamaynana annakana ah xilligan taariikhdaas aa bilawnay oo maanta uu yahay fiidiyogeena koowaada ugu horreeyey jamaca meesha ka dhigaa walaal waxaa ujeeda weydiinaya aawo dadka kaleeta dhahayay golahii geesiye halyaayada kaleeta aaway halyaayada insha allah way nagu soo biirayaan meesha waxay magaca waxay ku fiican tahay jamaca inaad ka dhigtid oo aniga keliya haddaa dhahdid waxaa waaye aska dhibaato laakiin ilaa haddeer meesha waxaa waaye keliya ahay haddaa adiga wax inaa isbedel aa samaysid rabtid waxaa waaye adiga marka koobaad inaa isbedeshid oo dadkii meesha u hogaaminaysa aa horkacdid oo dhinaca u socotid laakiinse ma dhihi kartid dadkoo dhan horta horeta dad fiican ha la helo wax fiican ha lasoo aruuriyo kadib ha isbedel raadina laakiinse isbedelku wuxuu kaa bilaabanaya waxaa waa adiga qofka adiga ahaan marka maanta maadaama aa ka hadlaya aniga dhibaatada qabyaaladda waxaa laga yaabaa dad badan oo idin kamid a inay isweydiiyaan adiga qabyaaladda dhibaatamiisa kuu soo geystay maxaa ku gubayniyo waa marka walaalahay dhibaato marka inkastaba iska xun tahay laakiin qabyaalad ahaan ani weligay liguma dhibaataynin haddii ligu dhibaateeyen maanta macnaha taariikhda dhinac fiican ay geli laheedoo waa in kaga sheekeyn lahay dhibaatadeyda laakiinse maxaa yeele waxaa aaminsanahay waxaa layidhi wax kasta oo aan ku dilin way ku xoojiyaan ma arkino wixii lagugu dhibaateeyey haddaysan afta kaa bixin adiga maasha allah cashiraa ka baranaysaa waa ku xogsanaanaysaa marka aniga ahaan qabyaalad liguma dhibaateynin laakiinse danta guud adiga waxa dantaadoo keliya ah haddaa u istaagtid oo qabyaaladii haddaa dhahdo aniga waxba igama gelin maadaama liigu dhibaateynin laakiinse ay yihiin dadka walaalaha ah dadka wax ku dhibaateynayo
ama ninkaaga uu yahay ama xaaskaaga cideedii ay tahay ama saaxiibada ay yihiin mar kastaba qabyaalada kama marnaanaysid ama adiga ahaw kan wax dhibaateynayo ama adiga ahaw kan la dhibaateynayo maxaa la dhihi jiray kor iyo hoosba adiga qabyaaladii waa ku dhex jirnaa afka soomaaliga haddaa ku hadashid oo qof soomaali ah aad tahay qabyaaladii dhibteedii inay ku saameysay ama ku saameyn doonto waa qasab maxaa yeele carruurtaada haddiisan maantay cudurkan laga caafimaadin oo iska qaban weyn oo aan la dagaalami weyno ilaa waxaa raba su-aal inaa idin weydiiyo oo idinku dhaho maanta waxaa idin wadaa cudur aad iyo aad u weyn oo soomaalida malaayiin qof ka dili ilaa haddana na haysto dadka qaarkiid laga yaabaa inay isdhihi lahaayeen corona maadaama hadeer corona lagu jiro laakiinse uu yahay macnaha uusan ahayn coronaha uusan ahayn ee tahay qabyaaladii laga yaaba hal sano waxay qabyaalada naga dishay iyo coronaha wuxuu naga dilay oo dhan intuu hadeer soo jiray inaysan isgaaraynin oo mar kastaba ay qabyaalada badan tahay taasaana dhibaatadeena ah dunida hadeer waxay ka cabaadaysaa cudurkan coronaha ah oo hadda soo weeraray annaka marka cudur corona ka daran maxaa u malaynaysaa hadduu na haystay cimrigeeniba intay soomaali soo jirtay ma aqaan dadkii horeeto laakiinse ilaa iyo way soo jirtaa u malaynaa daliilkana way sii badnaayeen ilaa hadeerna laakiinse waxaa u malaynaa wax lafaha naga galay inay yihiin marka sababta ma arkino maahan aniga ahaanteed in lagu dhibaateeyey ee waxaa waaye waa danti guud inaa u istaagayo waa danti guud oo walaalahayga muslimiinta ah oo dhibaataysan oo xaqdarrada lagu hayo oo la dulminayo dartood inaa u istaagay aniga iyo dhammaan akhyaarta kaleetoo nagu soo biiri doontaba hadduu ilaahay idin iyo adigana dhegaysanayaba inay tahay waajibna wada saaran inaan danteenni keli aan u istaagin danta guud aa u istaagno oo walaalaheenni aan garab istaagno waxaana hadda ka hor meeshan kusoo qoray ama beejkan kaleeto hoyga horumarka waxaa kusoo qoray ama u istaag oo la istaag ama ka istaag oo ku istaag oo dadka badankooda laga yaabo macnaha horta hore xogaa la isku fahmi waayey ama u istaag oo la istaag waxaan ka wadaa dantii walaalaha ahay haddaa u damqatid oo damiirkaaga ka danqado adiga maadaama is wax kuma dhibaateynayo waa sax laakiinse damiirkaagiyaa ka danqaday qofkaas walaalkaa ah muslimka ah oo dulmiga lagu hayo dartiis aa u istaagtay waana la istaagtay oo macnaha garabaa u noqotay garabkiisaa noqotay ama ka istaag oo sida meesha ku qoran oo macnaha afkaaga ka qabsa ah oo ah ka aamusnaanta iyo inaad waxba ka dhihin oo ku istaag oo ah silence is violence yaa meesha kore ku qoray ka aamusnaantu waa dhibaateyn marmarka qaarkoodna waxaa la yidhaahdaa aamusnaanta waxay ka dhigan tahay inaad ka raali tahay marka silence is violence waxa loo dhahayo wax kaleeta maahan haddaa ka aamustid waxay ka turjumaysaa inaad ka raali tahay dulmigaas iyo darxumada walaalaha lagu hayo iyo xaqdarrada dhacayso iyo qabyaalada iyo qabiilka wax lagu kala soocayo dad badanaa macnaha waxay ku leeyihin waa sax anigana maanta dhanna qabyaalad inaa dhahayo si fiican inaan dhagaha furteen oo maleynaa qabiilka iyo qabyaalada macnaha qabiilka muxuma markiino ayagoo wax la raadina markii qabyaalada ayadoo laga hadlaya qabiilkula aadaya aayadda qur-aankay soo daliisanayaan oo la dhahaysay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu oo qabaa'ilada lee lagu keena xataa litacaarafooda mabla waxeena war litacaarafu yaa laidin dhehee ma isku kala soocaa la dhahay isku aqoonsada isku bartaa la dhahay warkaas maasha allah wixii wanaag ah waa isku saacideynaa hogaamiyaha hadhowtiya imaan doona u maleynaa laakiinse macnaha xaqdarrada inaad ku raacdid oo dadka kaleeto ugu waxaysid maahan oo isku cunsuriyey laydima dhihin ma arkino marka aayaddiioo sii socoto ina akramakum cindallaahi atqaakum qofka idinkugu alla agtiisa loogu jaceylka badan yahay idinkugu karaamada badan waxaa waaye midka idinku alla cabsiga badan qofkiina wanaagsan alla ka cabsiga iyo wanaagiisa kaleeto ku noqday karaamada ku gaaray waa qofkaas maahan qof oo qof kaleeto ka qabiil fiican ma jiro iyo qabiilkaaga dartiis inaad jannada hadhowtid meel kore ku tegaysid ama dunidaana qabiilka kale hadduu ka khatarsan yahay qabiilkaaga 4 gacmood muu leeyahay
afar gacmood muu leeyahay ma saddex indhood uu leeyahay oo meeshaan il kaleeta ugu taal marka qabiilkaaga musuxuunta duushuu sameeya oo waxaa waaye caadi maahan dunida maba deganaba dadkan duni kaleeta ka imaadeen qabiilkaaga wuxuu uga qabiil badan yahay uga fiican yahay qabiilada kaleeto waa maxay ma jirto qabiil kale ka qiimo badan ma jiraan qof waxaa jiro qof kale ka qiimo badan maadaama hadduu qabiilkaaga qof ka qiimo badan uu ka yimaadana micnaheedu maaha adigana inaa qiimo badan tahay oo ninkaas aad ku daba feesho oo sheegato ninkaas ama gabadhaas heerka ay gaartay ayada isgaarsiisay ee qabiilkeedan uma gaarin ee dad kaleetan uma gaarin iyo in lagu dabagambado ee qofkaas wuxuu gaaray asagaa isgaarsiiyey adigan ujeedaa macnaha waxaa qiimo ku yeelanaysaa waxaa adiga samaysatay iyo waxaa qabsatay aa qiimo ku lahaanaysaa maahane qof kaleeto inaad ku daba feeshid qiimo kuma lahaanaysid macnaha dhinaca wanaagga marka laga fiiriyo waayo waxaa jirto dad kaleeto oo dhinaca xumaanta ahay uga daba feelayaan qabiilkooda qof saas iyo saas ah hebel iyo hebel dagaalkaasuu galay intaasuu daduu dilay geesi waaye maasha allah waxaa lagu leeyahay xaggaasu taagan yahay marka intuu geesi ka yahay inaad ku daba feeshid qofkaas oo kaleetana ma fiicno maxaa yeele hogaamiyihii adiga dhinacan midkii fiicnaaye magaciisa inaa sheegataa lagu diidayo oo adiga ahaantaada isku tashitid oo meel iska soo saartid maxaa u malaynaysaa qof asaga dembi dad kaleet ka galay ilaahay xaggiisana dembi ka galay inaad ku daba feeshid wax fiican maahan oo aad ku dayatid oo dhahdid waa geesigeeni iyo waa hebelkeeni iyo waa sideeni ee geesi haddaad tahay oo adigana macnaha ama geesi uu yahay qabiilkiisu wuxuu u sheegi lahay xaqdarada ay ku hayaan hadda ka horaa wuxuu dhahay sheekh mustafa laba qabiil hadday istagaashay oo labada qabiil markay istagaalaan oo qabiilkaana 100 uu dilo qabiilka isagana 5 laga dil wuxuu leeyahay maasha allah guulaa gaarnay oo waa badinay oo maxaa la dhihi jiray qabiilka kaleet ebra ka dhignay qabiil kaleet intay eber uga dhigteen macnaha waxaa waaye af soomaali waxaa la dhihi jiray 105 qof oo soomaali ah ama meeshaas ku dhimatay ku leeyahay waana sax shanta meeshaan laga dilay iyo 100ka meeshaas laga dilay waxaa waaye af soomaaliga waa dadku ka hadlaya waaye oo waa wada soomaali kulligood marka haddii kulligoodba ay soomaali yihiin macnaha waa maxay guusha aa gaartay waxaana laga yaabaa waxaa isku deesheen macnaha maxaaba laga yaabaa waxaana hubaal ah laba qabiil waxay isku dagaalayaan wax xaqdarro ah inay yihiin oo macnaha qabiil iyo magac iyo ujeedaa wax xaq ah maaha marka xaqdarrada yaaba idinku sugaysaba cadaabta iyo dhibaatada idin haysta adigana inaad kusii taageertid wax fiican maaha marka danta guud aa usoo laabano oo ah hadduu ilaahay idmo qofka wuxuu u kaco oo keliya ah inaysan ahayn dantiisa oo keliya inaysan noqonin ee ay noqoto danta guud marka 5 qodob oo dadkaas wanaagsan oo fiican oo danta guud u kaco lagu yaqaano aa idin sheega hadduu ilaahay idmo adinkana iska fiiriya inta aa ka leedihiin iyo macnaha kulligoodba inaa lahaatiin qasab maaha qaar ka mid ah waa lahaan kartiin qaarka kaleetan insha allah waa sii raadsan kartiin dadka kaleetan insha allah usii sheega oo lasii wadaaga maadaama meeshaan dad badan ku jirin haddaan usii sheergaraynaysiin aad iyo aad ugu farxi lahayn oo walaalaheena kaleeto aa gaarsiin kartiin mawduucan oo wada qoseeyo oo ah la dagaalanka qabyaaladda iyo in aan u istaagno danta guud marka waxaa idinka codsanaa inaan noo sii sheergaraysiin hadduu ilaahay idmo marka qoray ka raali noqda marka qodobka koobaad 5 qodob oo macnaha qofka wanaagsan oo danta guud u kacaya laga rabo qodobka koobaad waxaa waaye ama dadka sifooyinka ay leeyihiin waxaa waaye dadku waxay ka cabsadaan alla keliya ka cabsadaan allah oo keliya ay ka cabsadaan aniga haddeer macnaha haddaa ka cabsan lahay qabiilkaagii ama wax lagu waxyeeleeya maadaama aa qabyaalad ka hadlaysid ama falowgii iyo dadka iyo dhibaatooyinka iyo macnaha waxaa waaye haddeer haba sheekada bilaaw iska tahee maxaa kugu wataba dhibaatadaas dadkii ama ay kugu soo raaci waayaan ama lagu necbaystaa ama dadka qaarkood ay kaa gaabsadaan maadaama ay ka cabsoonayaan ama dad khatar ah oo la yaqaano oo magac iyo wax kaleeto iyo awoodba leh ay kusoo weeraraan oo maadaama
maskiinkaas hadeer meesha bilaabay aa iska tahay qabyaaladii inuu ka hadlana macnaha ku bilaabay aa kamid tahay aa tahay ama macnaha ileen cid lagaaga cabsanayo cid ma jirteen iyo magac lagaaga cabsanaye ama lagu dilaa macnaha lagu dilaar keliya maahan adiga dilkan macnaha waa sax iyadana dalka haddaad joogtid sidoo kaleeta ahayd in dalka dilku ka cabsoonaa qofka yani ahaanteyda marka qofku waxyaabahaas oo keliya inaa alla ka cabsatid oo waxaan xaq miyaa mase xaqdara miyaa qodobkaas uu imaanaha jeclahay alla keliya inaa ka cabsatid oo aadan danta uga cabsan shaqadeeda ama saa waxay noqotaa ama folowga liigala laabtaa ama la isoo folow gareyn waayaa ama commentiga liigu soocayaa waxaasoo dhan shaqadaada maaha waxba shaqa kuma lihid adiga ha ka cabsoonin waxaa ka cabsootaa allah oo keliya ah wixii kuu qoran wax ka badan kuma dhici karaan waxaas kugu dhacayaan ujeedaa dambi dhaafay ku yihiin imtixaanay ku yihiin ilaahay aan hadhowti insha allah ka abaalmarinayo midda labaad oo laga helo dadka wanaagsan oo danta guud u kaco waxaa waaye waxay aqbalaan keli ah waxa saxda ah waxay aqbalaan oo keli ah waxa saxda ah wax kasto macnaha waxaa arkaysaa dadku leh gar iyo gardarab waa ku wataa isku qabiilaan nahay marka gar iyo gardarab se u wadanay ninkan hadduu macnaha uu gar daran yahay oo walaalka uu yahay oo isku qabiil aad tihiin ma qabatid hadduu gar daran yahay xadiiskana waa taqaanay oo nabigu uu dhahayay walaalka hadduu gar daran yahana u hiili haddii laga gar daran yahana u hiili markaas asxaabta la yaabeen ay yiraahdeen haddii laga gar daran yahay waaba garanay hadduu gar daran yahay sidee ugu hiilinayna maxaa ugu hiilinayna waa asaaba gar daran waxaa ugu hiilinaysiin uu dhaha waa qabanaysiin waxaa dhehaysiin waa gar daran tahay iyo ka joog meeshaan aan ku socoto waa xaqdarro wax fiican oo sax ahna maahan waxaas aad samaynayso marka walaaltinimada waa midaas iyo sida fiican haddaa qabiilkaaga iyo dadkaaga wax ugu hiilinaysid xumaanta ka qaba haddaa geesi tahay xumaanta ka qaba oo u sheeg oo dheh waxaan aad samaynaysiin sax maahan kasoo horjeeso ummaddan hadeer waana laga badan yahay soomaan hadeer dadka qabyaalada ka aamusan aan kuwa taageeraya iyo kuwa wadaba marka isku barbar dhigay inta ka hadlaysa macnaha waxaa waaye waa la kala badan yahay insha allah laakiinse maalinta ka dambeyso waa sii badan doonaa fideogana carruurteen iyo carruurtooda markay fiirsadaan hadduu ilaah idmo qabyaalad badan masii jiri doonto oo waa waxa rajaynayno waxaa meeshan u bilaaban la dagaalankeeda marka ma ka aqbalaysid qabiilkaaga hadday inta ku imaadaan ee ku dhahaan ree hebel ah waxay dileen gabadhaa qabnay ina adeerkeed wiil la dhashay maxaa iga gala acuudu billah haddii dileen qofkaas wuu dilay wuu dhinta alla ya raxma allah u naxariisto kii kaleeto oo dilana asigu dembiga dushiisa ka saaraya haddaa aaritaan iyo waxa la sheegaya iyo duulaanka aad sheegaysiin macnaha wax jira maahan oo wax sax ah maahan idinma raacayo aniga dagaal idinma raacayo macnaha meeshaas haddaa ku dhimatid mujaahid ma tihid ee waxaa tahay ahlunaara tahay xaqdarre iyo dagaal iyo balaayaa u socotaa marka waxaa aqbalaysaa oo keli ah waxa saxda ah qof kasta ma arkinoo laa daacata limakhluuq limacsiyati alkhaaliq haddee wax ilaahay loogu soo horjeysanayo ujeedaa adiga kuma taageeraysid ibni aadan kuma taageeraysid ama qabiilkaaga ha ahaado ama qabiil kale ha ahaado habarteedii ka tahay kuma taageeraysid marka midda labaad waxaa waaye tan koowaad ahayd alle ka cabso tan labaad waxaa waaye waxay aqbalaan dadka wanaagsan oo waxtarka leh oo danta guud u istaago waxay aqbalaan oo keliya waxa wanaagsan midda saddexaad waxaa waaye waxay u adeegaan danta guud waxay u adeegaan danta guud macnaha qofka hadduu dantiisa u adeego maasha allah qof fiican waaye laakiinse waxaa kasii fiican qofka tiisa u adeego oo tii guudna ku daro oo macnaha maadaama mawduuca hadduus adiga ku quseyn aa dhahdoo kaleeto maanta ani qabyaalada maasha allah waxaa waaye ani reerkayga waxay kamid yihiin reeraha xoogaa hadeer meelahaas afarta kamid yihiin markiinoo qabyaalada inaan ka hadla dan maba iigu jirta maxaa waaye marka dan ma iigu jirto ha aa dhahda adiga macnaha dantii guud maadan fiirin dan ma iigu jirto adiga aska hadasha laakiinse qabyaalada mar laba dan kuma jirto macnaha maanta adi haddii dadkan ka badan tahay meeqa qabiilaa jiraan oo ka badnaan jiray tusaale inaan soo qaadan karay in kaleeto ma ogi hadeer laakiinse ma ogi qabiilka ajuuraan mu aha miya ma aqaan waxaa la dhihi jiray xilliga hore boqortooy ahaan jireen waxaa waaye africa oo dhan meelaha east africa waxaa waaye maasha allah dad shidanay ka ahaan jireen marka adigana qabiilkaaga maantay taasoo kaleeto inay ku dhici karto oo meeshan adduunyada waa saan u wareegsanaysaa maanta inaa adiga yaraan kartid berina ay ka badnaan karaan macnaha maxaa kala socotaa shalaba saas u ahayd cagsigeedana waxaa waa way dhacaysaa
marka adiga maanta haddaa xaqdarrada aad la jirto oo shib ka dhahdid oo u istaagi weyso berito carruurtaada iyo carruurtoodii aa ku dhibtoonayaan xaqdarrada maanta wax ka qaban weyse marka dan ma iigu jirtaa dhahday maanta adiga dantaada bes iyo nafsadaada besaa fiirsatay laakiinse macnaha dadka wanaagsan oo waxtar kale waxay fiiriyaan danta guud ee fiiriyaan oo tooda bes kama fikiraan ayagoo dan aysan ugu jirin oo dantooda khaas ah ugu jirin dan gaar ah ugu jirin inay waxaan ka hadlaan ay ka hadlaan maadaama ay danti guud iyo dadkii masaakiinta ahaa iyo kuwii dulmanaa ay rabaan inay u danaaniyaan marka qodobka afraad waxaa waaye waxay fiiriyaan baahidooda waxay fiiriyaan waxa ay awoodaan oo keli ah iyo waxa gacantooda ku jiro ma arkino macnaha ma fiirinayaan adiga macnaha qofkan waxay ku leeyihiin waxaa fiirinayna aniga maxaa awoodaa aniga haddeer maanta waxaa awoodaa meeshaan inaa bal ilaaha social media macnaha sida fiicanna u adeegsan kartaa qabiilka iyo dadkii iskugu habarwacanayay sida oo macnaha waa u adeegsan kartaa ayadana wanaagsan macnaha waxaa awoodaa maanta meel yar meeshaan magacaana iska samaysana haddeer golaha geesiyada ugu magac darnay hoyga halyeeyada ugu magac darnay dadka qabyaalada la dagaalamayena aan ku casuumeyna maxaa kaloo awoodaa meeshii oo qabyaalad lagula dagaalamaya arko laygtaa dhac ku siinaa sheertaa usii taabanaa commentiiriisoo dhiirigelina usii qoro qofkaas geesiga ah oo qabyaalada ka hadlay marka waxa awoodo soomaan maxaa kaleeto haddana kusii awoodaa meeshaan yiriis laba eraya iska soo qorqoranaa ummad fiican oo adinkoo kaleeto ahaa soo hor istaagaa inti fikirkeyga iyo waxa soo aruuriyaa la wadaaga hadduu ilaahay qof walbaba awoodiisa waa macnaha maxaa kaloo awoodaa qof kuu dhawaa u sheegaysaa qabyaalada xumaanteeda u sheegaysaa baa leedahay bal niyaho waxaas wax saxan maahane iska dhaaf walaalay gabadhiyay adigana waxaa leedahay xaajiyo geesi haddaa taan ujeedaa qabiilkaaga baa kasoo horjeesan lahayd oo xaqdaradan ee ku hogaaminaa ujeedid oo adigana qabiilkaaga hoggaan u tahay maada u raacdeen geesi haddaa taa waxaa dhihi lahayd qabiilkayga idima hogaaminayo ani idima hogaaminayo dagaalkaas ma geliyin maxaa yeele xaqdarro waay dad soomaali ahaa dhammaynayna waa dadkii walaalaheen ah waay haddana waxaa iskugu daranba dadka isdilo waxaa waay dadka deriska ah tuulada kaleeto kasoo horjeedo ee la dagaashan tahay gobolka kaleeto oo macnaha ku dhegan uu la dagaashan yahay bal duni deriskeeda ma arkino deriskii gaar kugu leeyahay islaamnimadii ayada meel kaleeto waay qofka isku afaa tihiin walaalaa tihiin waxaasoo dhan waa laga dulbooday waxaa la fiirinaa isku qabiil maanaha mase isku qabiilkii haddana waxaa ayakii gudahooda isku soo laabanayaan markii dadkii kaleeto laga waxeeyo gobolkii intaa la gaarin tuuladii haddana qabiilkii wax isla degan saddex lafood oo ay kala dhaleen saddexdii lafooda haddana isii yasaayaan ayakii ama ayakiyaaba isii waxaysanayaan oo macnaha isii qabqabsanayaan isii dagaalayaan marka qabyaaladda inaysan faa'iido lahayn oo macnaha aysan meel ay isku dhamaanaysan aysan jirin meesha ugu dambeysa ay ku dhamaanaysa ee tahay xaqdarro ee tahay iyo naar un ma arkino aas-aaskeeda iyo macnaha iyo gunaanadkeedaba naar leh inuu noqonayo meeshaasaa kaaga cad marka ma fiiriyaan dadka macnaha wanaagsan oo waxtarka leh ma fiiriyaan waxa dadka kaleeto oo alla dadkan xumaan badanaa iyo keliya ma fiirinayaan ee waxay fiirinayaan waxay ayaka awoodaan aniga maxaa awoodaa maanta sidee ula dagaalami karaa qabyaaladda waa liiga badan yahay haa waa lagaa badan yahay waxba kaama gelin adiga dadkan maskaxdooda sahal kuma bedeli kartid waxba kaama gelin laakiin maxaa awoodaa adiga isbedeli kartid iyo waxyaabihii yaryara hadda idin sheega social media haddaa ku jirtiin share like comment iyo wixii lamid ahaa samaynaysiin haddaa meel aasaasi kartiin waa aasaasaysiin haddaa dad soo hor istaagi kartiin laba erey ka dhihi kartiin historygiin wax dhigi kartiin iyo feedkiin wax lamid ah waa dhehaysiin ayadan laakiin qof walba qasab maaha macnaha intaas inuu awoodo laakiin waxaa jirto qof walba wax uu awoodo waxa awoodo adiga istaqaan marka macnaha an ma dhahayo qof walba ha noqdo sidii geesigiyo meesha ugu darno maasha allah sayid maxamed cabdulla xasan oo kale ha noqdo yaa dagaalka hore ha ka galo maasha allah iyo xaawataak iyo hadhowta insha allah tusaalaha intuu soo qaadan doonaa laakiinse haddeer ma ujeedaa waxaa ku bilowda muhiimka waxaa ah walaal meeshaa joogtid ka bilaaw waxaa awoodidna ku bilaaw wax kasta ma ujeedaa waxaa awoodid marka fiiri ee ha fiirin inta lagaa badan yahay iyo da'daada iyo magacaaga iyo aqoontaada iyo waxaas dhan ha fiirin waxa meeshaa joogtid wax waa qaban kartaa waa qasab haddaa idhihiis maya ma jiraan waxaa qaban karin ila soo hadal anaa kuu sheegaya waana ku tusaa meesha inaa meel wax ka qaban kartid inay jiraan waa qasab waaye laakiinse adaan ku baraarugsaneyn oo daciifnimada bes dhinaca negative ahaa kuu muuqdo
dhinac fiicna kuu muuqdo laakiinse waa hubaa inaad tihiin maasha allah dad wanaagsan oo dhinaca wanaagsan wax ka eegi doono oonan u istaagi doono inay dadka kala caawiyaan wixii awoodaanna qaban doono hadduu ilaahay idmo qodobka shanaad oo macnahaas shantan qodob ugu dambeeya waxaa waaye waxay ku qancaan oo aqbalaan allahna uga mahadceliyaan wuxuu ilaahay u qoray qadarta wuxuu ilaahay u qoray ujeeda ama qabiil ha ahaato ama wax ku dhaca ha ahaadaan ama dhibaato kasoo gaartay imtixaan ayagoo danta guud u istaagaya ha ahaato kulligood waxay rabtaba ha ahaato marka way ku qancaan waxaas waxayna ilaahay ka magan galaan ibtilada dadka kaleeto lagu imtixaanay oo macnaha ilaahay dadka qofkan qabyaaladiistaha ilaahay adigu kaa dhigi kara alxamdulilah aa leedahay waa caafaani mima ibtilaak rabbak wafadalanii liman khuliqa kathiira marka waa ka ducaysanaysaa marka koowaad ilaahay ninkan xun oo kaleeto ama gabadhan xun oo kaleeto igama dhiginoo qabyaalada dharka u tuurinayso ninkan qoriga hoggaanka u haysto oo macnaha qabiil dartiis ugu jiraba meesha ugu horeyso inuu dadka kula dagaalamo marka labadaba inaa ogaatid waa marka awoodaada iyo waxaan yar oo haysatid inaa ilaahay uga mahadcelisid oo dhahda alxamdulilah 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 dhibaatadii kugu dhacdo iyo waxa yaroo ku haystan aa ku sawirtid aa ogaatid imtixaan inay tahay xaaladda meeshaa joogtidna aa ku qanacdid ama qabiilkaas ahaaw ama qabiilkaas ahaaw waxay rataba ha ahaatee inaad ku qanacdid hadduu ilaahay idmo midda ugu dambeysa macnaha ku celiyaa liileeyahay waxaa waaye qofku wuxuu ku qancaa wuxuu ilaahay u qoray iyo qofkuu ka dhigay iyo qabiilkuu ka dhashay iyo imtixaanaadkii la kulmay wuxuuna ilaahay ka magan galaa waxyaabaha ibtilooyinka ah uu dadka kaleeto ilaahay ku imtixaanay uu ilaahay ka magan galaa marka qodobka waa qodobkaas shantaba haddaan hal mar kusoo celiyo waxaa waa marka dadka wanaagsan oo waxtarka leh waxay sifooyinkooda waxaa ka mid ah midda koowaad oo ah ilaahay keliya ka cabsadaan qabiilka haddaa ka hadlaysid ujeedaa irsaaqad iyo adduunyo kaleeto iyo social media iyo magac iyo faaraha fiiran iyo ama wax saas lagu dhahaa iyo ama qofkaas ku heysaa iyo ama lagaasoo horjeestaa waxba ha ka cabsoon waxba kaama gelin adiga ilaahay bes ka cabso waxaa xaqa ah qodobka labaad oo maleyna qodobka labaadna waxaa waaye waxay aqbalaan oo keli ah waxa saxda ah oo xaqa qabiilkooda haddii dagaal ku hogaamiyaan xaqdarra ah ma raacayaan dagaal kastoo qabiil horta ma arkino oo qabiil kaleeto weeraraya waa xaqdarro laakiinse wax kasta oo xaqdarra ah ma raacayaan oo waxa saxda ah bis ujeedaa qabiilkaaga haddii lagu dhaho kaleeto maasha allah maanta waxaa waaye sadaqo weyn inaa aruurinaa rabnaa oo soomaalidii dhibaataysneed lagu waxeynayo maxaa dhihi jiray lagu caawinayo qabiilkaaga markaasoo kaleeto maasha allah haddaa meeshaas ama waxaa waaye qofaa dhinta oo qabuurahaasaa la samaynahe bal xaqaaga baxso ayadan maasha allah markaas waa ku waxayn kartaa wixii kaleetoo dhan soo maahan ha qabiilkeen ciddaas ma guursaday lagu leeyahay ma aqbalaysid qabiilkeen ciddaasuu la dagaalaha lagu leeyahay ma aqbalaysid qabiilkeena saan iyo saan ma sameeya leeyahay ma aqbalaysid maxaa yeele kulli qalad waay marka wuxuu aqbalaa qofka wanaagsan waxa saxda ah keliya midda saddexaad waxaa waaye wuxuu u adeegaa danta guud oo tiisa keliya ma fiirsada ani haddeer macnaha maxaa dan iigu jirto oo kaleeto anoo meeshaan ku cusub oo maskiin iska ah folowigii dadka isoo raaci lahaa inaan isku diro maadaama qabyaalad qof kasta uu ka cabsanayo oo musho ku jiro asaga tiisa uu la gambanayo adigina meeshii dadkii kaa horreeyey iyo ku saacid lahaa aa kasoo hor istaagtid oo dhahayd wadadaa ku socotiin waa qalad haddaa qabyaalada sii haysatiin ujeeda halaaga maanta nagu socdo wuxuu roob la di'i la'yahay ibtilada aa gacanteena ku geysano waaye waanu kusii jiri doonaa walaalayaal oo qabyaaladaa naga dhaaf haddaa dhahdid waa lagaa soo horjeesanaya maa shib iska dhahda shaakiro maya ha fiirin waxba kaama gelin ani dan iguma jirta laakiinse walaalahayga dulman ee danta guud ugu jirtaa marka qofka danta guud oo fiirina midda afraad waxaa waaye waxay baahidooda ku koobaan oo keliya ah waxa ay awoodaan waxayna fiiriyaan waxa gacantooda ku jiro adiga waxyaabahaada awoodin iyo dadkan kaasoo horjeesan kara iyo qaraacdaas iska dhaaf oo magac malihi iyo mamarsiyadan iska dhaaf waxa awoodid fiiri maxaa awoodaa laag ma awoodaa sheer ma awoodaa qoraal yiriis ma awoodaa qof inaa sarbeeb u sheegtid ma awoodaa inaa mid su'aalo weydiisid ma awoodaa waxa awoodid fiiri meeshaasna ka bilaabo hadduu ilaahay iyo tii shanaad ugu dambeysa oo ahayd waxay ku qancaan ilaahay wuxuu u qoray waxayna ka magan galaan ilaahay ibtilooyinka uu dadkan kaleet ku ibtileeyay macnaha qofkan kaleeta jaahil inuu ka yahay laga yaaba waxaan aadi og tahay inaa ku digatid maahan inaa ilaahay alxamdulilah dhahdid waa marka koowaad marka labaadna u sheegtid adoo u sheegtid oo kabacdi ma arkin wixii kadib hadduu sii wato hoshiisa asagay u taalaahay ilaahay
ha soo hanuuniyo. marka shantaas qodob hadduu ilaahay idmo caade haddaa ka dhigataan waxaa noqonaysiin qof fiican oo waxtar leh oo bulshadiisi haddii ilaahay idmo intuu adduunka joogo anfaco aakhir markuu tagana insha allah ajri xasanaad badan oo aan la soo koobi karin aa kaa horeeyo. maadaama ay meeshan dad badan noogu jirin waxaan idinka codsanaa hal mar inaa noogu sheergelisiin asxaabtiina. marka haddaay waa idin soo sharaxay ama u istaag ama ka istaag ama u istaag oo la istaag ama ka istaag oo ku istaag arrinta ahayd oo macnaha ka turjumaysa silence is violence oo ka aamusida qabyaaladda waxay ka dhigan tahay inaa dhibaatada dadka dulman lagu haayo aa ka raali tahay oo macnaha sharaxaadeeda aa ku fasirno ama u istaagta ee ahayd haddaa u istaagtid danti guud oo walaalaha dartood aa u istaagtid waa garab istaagtid macnaha saacidaaday kaa dareemen maasha allah dadki ama ka istaag oo ah shibka dheh oo silenceda ahayd oo ku istaag oo ah violence oo macnaha qofkii haddaa ka aamustid xaqdarra iyadoo lagu sameynaa ujeedid aa og tahay aa ka aamustay. marka silence is violence meeshaasay noqonaysaa waxaa waaye waa dhibaatays qofkaas maadaama aa ka aamustay ahludiin ahaaw ama dad kaleeto oo normaal ah ahaaw ama cabsi ha ku hayso walaal xoogaa yiriisa intaa ka waxayn kartin ujeedaa siiba dadka ahludiinka laga yaaba macnaha qaarkood inay ka gaabsadaan isku moodaan haddana in la saxan yahay maasha allah waxyaaba saxan way jiraan laakiinse waxaa idinka codsanaa sidaa uga hadli kartiin sarbeeb ha ahaato ama toos ha ahaato qarsoonan ha ahaato ama ha muuqato sidaa uga hadli kartiin insha allah inaa uga hadashiin. marka midda kaloo ku xigta waxaa waaye inuu bilaabo qofku inuu la dagaalamo qabyaaladda inuu bilaabo wuxuuna ka bilaabaa meesha uu joogo ka bilaabaa meesha aad joogtid iyo waxaa awoodida ku bilaabaysaa social media ku dhex jirtaa social media ka dhex bilaabaysaa gurigaaga ku dhex jirtaa gurigaaga ka dhex bilaabaysaa. marka muhiim waxaa ah qofku inuu bilaabo la dagaalanka qabyaaladda inuu ka bilaabo meesha uu joogo uuna ku bilaabo waxa uu awoodo macnaha haddaa dhahdo intaa khatar ka noqonaya sugaa intaa magac ka yeelanaya sugaa intaa saas ka noqonaya sugaa inta dad isaacida iga imaanayana sugaa inta xoogaa soomaalida ay fahmayaan dhibaatada qabyaaladda sugaa haddaa dhahdo waqtiguu kugu dhamaanaa caruurtaada iyo adigana ujeedaa qabyaaladda qurunkeedu waa kusii jiraysin waana ka shalaayi doontaa maanta in aad bilaabi weyse la dagaalankeeda. marka waxaa bilaabaysaa maantaa bilaabaysaa meeshaa joogtaa ka bilaabaysaa waxaana ku bilaabaysaa waxa aad awoodda hadduu ilaahay idmo. marka danta guud inaad u istaagto oo qabyaalad kasoo horjeesato oo danyarta iyo dadka dulman oo madluumiinta ah aa u danaaniso macnaha dabeecad ha kuu noqoto oo dadkaas dhibaataysanoo masaakiinta halganay ku jiraan qofkana wallaahi billahi meesha geesi macnaha wax bilaash looguma qaran oo waxaa waaye waxaana dantiisa ahayn qofku u istaagay qofkaasaa geesi ah. geesi maaha macnaha qofkii maxaa la dhihi jiray qabiilkiisa dagaalka intuu ku hogaamiyey intaasoo qof ugu hormara wax xaqdarrada haddaa ku carartid ujeedaa geesi ma tihid waxaa qof geesi ah qofkii ayadoo laga tiri badan yahay wixii xaqa ahaa keligiis u istaagay qofkaasaa geesi ah. macnaha fursadda aa haysatid muhiimadeeda geesinimada waxaa kasoo qaada hadeer ama orod ilaahay wixii hibe wuxuu kuu siiyey orod fakatax inaad tahay oo macnaha ilaahay kuu siiyey. marka katim iyo kabtay bilataa la dheelaya ciyaarahaas reer koonfurka dheelaan ma aqaan luqadaha kaleeto saddexda jihoo kaleeto ma arkin oo waqooyi galbeed iyo bari waxa la ciyaarahaas laga dhaha ma aqaano laakiin katim iyo kabtay bilataa waxaa waaye fakataxdaada waxaa waaye maasha allah ha ku tahay fakataxdaada ujeedaa waa ku badbaadaysaa markii la isciirsado. laakiin fakataxda ninkii meeshaas ku orodka badnaay oo meeshaas khatarta ku ahayaa maanta wuxuu arkaa hooyo uur leh maamo uur leh oo xaamilo ah oo cunug yar wadato cunugiiraa ka cararay baabuura meeshaas kusoo socdo cunugiya macnaha uu jiiri rabaa ama uu dardari rabaa. ninkii fakataxda lahaay haddii uu ka cabsoodo ka waran fakataxdiisa khatarta ku ahaay uu ka cabsoodo in uu fakatax dhaho uu cunugii meesha kasoo qabto fakataxdiisa waxba umaysa faa'iideyni ma arkino. marka fakataxdaada iyo geesinimadaada waxay faa'iido leedahay markastaba faa'iido ma laha macnaha orodkii meesha oo markaa ciyaaraysay faa'iido weyn ma lehen maxaa yeele waxaa ku jirta ciyaar waaye laakiinse orodkaaga faa'iido muxuu yeelanaa maalinta aa fakatax inta dhahdo aa cunugii yaraa soo badbaadiyso aa hooyada u dhiibto maalintaas maasha allah faa'iiduu yeelanaa orodkaagii oo maxaa yeelay heybadaadii iyo hibaduu ilaahay ku siiyey iyo wixii fiicnaa si fiicana u adeegsato. laakiin geesinimo iyo waxyaabo kaleeto iyo aftahnimo hadduu ilaahay ku siiyey oo aa u adeegsato wadadii xumeyd oo macnaha qabyaalada aa ku saacido
meeqa qofaa arkayn macnaha dagaal dartiis qabyaalad darteed macnaha dagaal safka hore u galay, meeqa qofaa arkayn macnaha gabayo iyo sheekooyin kaleeto u tiriyey. marka taas geesinimo maahan. insha allah taalantiina iyo waxa awoodiina ah waxaa ku saacidiin waxa wanaagsan ku garab istaaga. marka hadduu dhinac qofka cabsanayana wax dhib ah maahan, wax oo dabiici ah waa qof kasta inuu cabsanayo. anaka maasha allah waa cabsanaynaa, saasay tahay haddana meeshaan inaad soo hor istaagtid maalinta koowaad isku day, maalinta ka dambeysa insha allah macnaha meeshaan soo istaaga kadii kama wada waxaan ka wadaa qof inaad wax yar ku caawisid oo aad ka cabsanaysid, waa bilaabaysaa, waxaana ku bilaabaysaa tilaabo yar insha allah. maalinta ka dambeyso cabsidii way kaasii yaraanaysaa hadduu ilaahay idmo. marka dadkaasna qof kastana ma sameeyo macnaha qofka dadka kaleeto inuu caawiyo qof kasta kuma dhiirado, qofka geesiga keliya ku dhiirado. waxaan rajeynaa hadduu ilaahay idmo adinkan inaad tihiin geesiyaal ku dhiirado dadka kaleeto inay caawiyaan. marka loo baahan yahay caawimaada ha labalabaynin oo macnaha shakinin oo fikirkiisu kula dheeraan. haddii intaas uu kula waxeys waxaa waaye way kula tagta bahash maasha allah, waxaa waaye meesha waa lagu kala tegey, fulinimadii kaa tanbadisay, waa lagaa guuleystay oo qofka aa caawin kartid sikimadaas yariiska ah intaa fikiraysid intaa labalabaynaysid sheekadii waxaa waaye waa isku dhamaatay oo qofkii inaa caawiso waa ka gaabisay. minta ku xigta hadaya laakiinse waa idin soo sheegay hogaamiyaha qabiilkiisa qabyaalada ku hogaamiye fiican maahan. adiga haddaad daba raacdin hogaamiyahaas adigana qof fiican ma tihid, maxaa yeele xaqdarraa ku raacday. adiga iyo hogaamiyaha xaqdarada kugu hogaamiyey haddaad sii daba joogtid haawiye naarti ladhahaa ka xiranaysid. hogaamiyihiina iyo qabiilkiina ninka ugu khatarsanba adigana haddaa ku taageertid oo ugu sacabtantid isku midaa tihiin, allaha idin aruuriyo. waxaa waaye meel xunaa ka dhexaysin, laakiinse intaas ilaahay naguma keenay arrintaas aysan dhicin. qof kasta oo muslim ah oo soomaali ah waa u duceynaa, si gaar ah ugu duceynaa qabyaalada inuusan ilaahay qaatumadeena inuusan ku xumayn qabyaalad darteed. ilaahay naga soo hanuuniyo, cudurkan wuuna wada haystaa. waxaa rajeynaa hadduu ilaahay idmo laga yaabo 30 sano 60 sano hadda kadib ah anakoo isla fadhin carruurteena u sheekeynayna ama na weydiinayaan qabyaalada xilligeeda nooga sheekeeya, bal maxaa jiri, maxaa lagu kala sooci jiray, maxay ahayd dhibaatada jirtay, noqoto qabyaaladan dagaalankeeda aa wadno wax taariikh oo tagay noqoto oosan ilaahay nagu sii daba dheeraynin. maalintaas laakiinse marka isweydiinayo adiga macnaha qofkee kamid tahay, kuwee kamid tahay, carruurtooda way ku weydiin doonaan ayeeyo awoowe maxaa ka qabatay la dagaalanka qabyaalada maalintii la waday, kaalintee ka qaadatay, maxaa ka qabatay, sidee uga qayb qaadatay, ma waxaa ahayd qof iska cabsado oo ka gaabsanaa iyo meesha ka dhacaysay waxba lama bedeli kara dhahay ma ahayd, mase qof garab istaagay dadkii la dagaalamaya haddaysan macnaha ayaka ahayn dadkii dagaalamaya, ma waxaa ahayd qof garab istaagay dadkii la dagaalamaya, mase waxaa ahayd kuwa dhinaca kale kasoo jeeday ooba kuwaan la dagaalamaya dagaalka ayakan dhinacooda ku hayay isku dayayay inay afka ka xiraan oo qabiilka ay u sheegaan inuu wax fiican yahay. marka labadaas dhinac midkaa noqonaysid adigaa taqaanid, carruurtoodana way ku weydiin doonaan. waxaa dhihi lahaydna maalintaas adaa lagaa rabaa. maanta waxaa u mudaa caadi, laakiinse waxaa kaa ballan qaadaa ilaahay iidankiis insha allah qabyaaladda inaysan saan khatar usii ahaan doonin 30 sano oo soo socdo iyo 50 sano oo soo socdaba. marka hadduu ilaahay idmo maalintaas ama waxaa noqonaysaa qof ceebaysan oo ka dhuudhuunta oo carruurta wuxuu uga jawaabo weysan, ama waxaa noqonaysaa qof ilaahay u nimceeyey oo og cimrigiisii iyo waqtigiisii waddo fiican inuu soo geliyey oo xaqdarrada kasoo horjeestay oo xaqa u hiiliyey oo carruurtiisii uu awoowaha u ahay ama ayeeyada u ahay wax wanaagsan u sheegi karo, sheeko wanaagsan uga sheekeyn karo, dulmiga inuu kasoo horjeestay la wadaagi karo hadduu ilaahay idmo, dulmiga inuu kasoo horjeestay la wadaagi karo.
marka waxaa noqonaysaa qof la wadaagi karo caruurtay dhaleen qisooyin ah inuu kasoo horjeestay dulmigiisii dulmiga ee qabyaalada waday qof kasoo horjeestay inaad noqon kartid macnaha qof aad tahay xuduudihii ee qabyaalada u dhigtay qof jebiyey xuduudaha qabyaalada dhigtay waxaa la joogaa xilligii xargaha loo jari lahaa xargahaas inayna celiyaan xaq maaha waa xaq daro xuduudahaas ee qabyaalada noo dhigtay inayna celiyaan xaq maahan waa xaq daro waxaana la joogaa xilligii xargaha loo jari lahaa la joogaa eesan laakiin xuduudahaas adiga yaysan ku celin xuduudahaas hadduu ilaahay idmo yaysan ku celin diid dulmiga lagu wado dadka dulman da'yarta iyo dadka sida qaldan loola dhaqmaayo diid darxumadaas ma ujeeda raalli ha ka noqon damiirkaaga ha diido dareenkaaga ha ka damqado hadduu ilaahay idmo muuji dadnimo muuji adduun iyo aakhir way kala badan yihiin maantay laga yaabo dantaada inay isku jirin inaad dartood u istaagtay laakiinse danta guud ay ku jirto berritana looga badbaadi karo hadduu ilaahay idmo dhibaato weyn oo qabyaaladan ee nagu sii hayn lahayd marka ayaka dartood u istaag dadkaas dulman dartood u istaag haddaase adiga dhibaato ku haysanin dadkaas dulman dartood u istaag khatar kasta oo jirto dadkaas dartood u istaag kasoo horjeeso dadkaagi iyo walaalaha iyo qof kasta oo wanaagga necab uga soo horjeeso ilaahay dartiis uga soo horjeeso danta guud dartooda uga soo horjeeso dulmiga dadkaas lagu hayo dartood uga soo horjeeso iyo inaadan ka raali noqonaynin xaqdarrada meeshaas ka socoto ciwaankeenan macnaha silence is violence waa ma arkino ka aamusnaanta waxay ka mid tahay inaad raalli ka tahay dhibaatada lagu hayo qof kasta oo dulman wuxuu raba ha ahaado qofkaas ama qabyaalo darteed ha looga hayo ama arrimo kale darteed ha looga hayo marka cabsidiisa kaa tanbadin ogow qabyaaladan inay qalad tahay waa caadi inaad cabsato laakiinse waxaana caadi ahayn inaad fulay noqoto caadi maaha waxa waaye cabsida qof kastay ku jirtaa laakiin fulay mujeedaa cabsida darteed lama dhaqaaqi karaayo oo waxa waaye meeshuu iska istaagnaanaa shibuu iska ahaanaa wixii oo dhan inay ku dhacaan uu u dulqaadanaa marka ilaahay dartiis u istaag dadkaas dartoodna u istaag hana ka aamusin markastana rajadaada mujeedaa rajadaada waxa dagaalka u bilaawnay ama meesha ugu soconan waxaa waaye aana ku kalsoonahay inaan rajo leeyahay inay dhammaan doonto hadduu ilaah idmo marka rajada aan leeyahay waxaa waaye inay dad fiican idinku jiraan dad fiican idinka buuxaan qabyaalada dhamayn karo soo gabagabayn karo haddii maanta dagaalkeeda aan la bilaabin qolada kaleeto usii dhiibaysaa waxaa hadda ka hor idin weydiiyey ama qoraalkaas inaan soo dhigin karo ma aqaan waa maxay sababta qabyaalada u dhammaan la'dahay jawaabtan waxay ahayd anaa iskaga jawaabaya maxaa yeele jiilka kaleeto usii dhiibaa qabyaaladii oo macnaha wax caadi ah ee ka noqotay wax caadi ah ee ka noqotay in laisku sii dhiidhiibo adigana sidoo kale haddaa ka aamustid caruurtaadiyaa usii dhiibaysaa caruurtaadii hadhowti maxaa ku eedeynaysaa maalinaada waxba qaban karin inaad qabyaaladii la dagaalantid waxaa ka fiican maanta inaa adiga geeskaaga ka geshid inaad geeskaaga aad ka geshid macnaha dagaalkan qabyaalada lagula jiro
waxyaabahan waxaa la dhahay freedom is not free. xornimada xor maahan. xornimada mujeeda xor maahan oo qof kasta wuxuu qaadan kara maahan. xornimada waxaa qaadan kara oo keliya qofka u dagaalamay. diintan islaamka ah oo nimcadeeda aan maanta ku faanayno haysano aakhiri adduunka ku diibaani doono waxaa usoo dagaalama dadkaasna waxaa u horreeyey nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasalam oo darteen loo dhibaateeyey oo aad ogtihiin qisooyinkiisii wadooyinkii mako sida macnaha loogu sidciyey asagoo ah qof maasha allah ah akhlaaqiyan maasha allah ah qabiil ahaan dad fiican ka dhashay dhinac kastaba ka fiican oo la aaminsan yahay laakiinse waxa loo waxeynaya uu ahayd wuxuu u istaagay wax xaq ah diintii darteed loo dhibaateeyey waxaa kaleeto ogtihiin geesigii Khalid bin Waliid oo muslimiinta maanta u baahnaayeen ayaga dartood cadowga intuu dhex galay meel gaashaanka u ahay xuduud u ahayd cadowgii uu ka furay muslimiinta maasha allah oo maalintaas guul weyn u soo hooyey xornimadan kaleeto waa maantay Soomaaliya ay xor ka tahay macnaha uusan gumaysanaysanin dadaa sabab u ah sayid maxamed cabdulla xasan xaawo taako axmed gurey syl dhammaan iyo akhyaarta kaleeto oo haddeer ilowsanahay oo aad taqaaniin oo taariikhda ku jirto waxay taariikhda ku galeenna macnaha wax kaleeto maahan maalinta ay dadka kale tacabsoonayeen ee labalabeynayeen ee hakanayeen ee shakinayeen maalintaasay u istaageen danta guud ayaka haddeer waxba badankood way ku dhinteen SYLna waa taqaaniin 13 qof ay ahaayeen 13 qof bilaash umaysan ahayn oo waxaa waaye haddii dad badan ay jiraan oo ku biiri karo maysan diidi lahayn laakiinse dantaas 13kaas qof ka dhigtay danta heedheh 13kaas qof ka dhigtay maxaa yeele qof kastaba wuu xabsoonayay wuu labalabeynayay wuu shakinayay dhan iguma jirto uu lahaa laakiinse maantay annagaa ku intifaacayno waxay nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam Khalid bin Waliid sayid maxamed cabdulla xasan xaawo taako axmed gurey iyo SYL waxay noo soo qabteen diin ha ahaato ama xornimada dalkeena way hela ha ahaato labadaba dadka ku intifaacayo annaka waay maanta adiga marka maxaa kuu soo haray adiga maanta waxaa intifaacaas taariikhda ku geli kartaa oo wanaag horseed ugu noqon kartaa in aad la dagaalantid qabyaaladda ama ahaa kuwa dhinacan kasoo jeedo ama ahaa kuwa dhinacan kale kasoo jeedo ciddaa rabtid ahaa haddii laakiinse identitygaaga iyo macnaha waxa aa sheeganaysa uu yahay qof islaam ah oo mid kaleetana Soomaali ah bes intaas kadibna aad dhehaysa aniga qabiilkayga wixii wanaagsan wax kaasa haddii wanaag sheegayaan waa alxamdulilah laakiinse waxaa diyaar u ahay wax kastoo xumaanta ah inaan kasoo horjeesto maanta yaa marka waxaa u noqon kartaa hoggaan iyo horseed dadkan qabyaaladda la dagaalamayo hadduu ilaahay idmana macnaha meesha waqti dhumis iyaysan noqon iska fiirsaday iyo madadaalo iyo wax kaleeto qof walbaba insha allah isla xisaabtamo ha isweydiiyo wuxuu uu awoodo wax uu samayn karo sida ahdaa idin sheega qof kastaba maxaa bilaabo meesha uu joogo asagaas ka bilaabo horta hore adiga qabyaaladda qalbigaaga ka nadiifi ha u damaqan qabyaalad darteed ujeedaa yaa mamarsi wax lagu inta lagu raadiyay aada dhihin haye wax yeeleen ciddaas ama qofkaas aad diidin marka adiga isnadiifi kadibna waxaa bilaabaysaa meeshaad joogtid ka bilaabaysaa waxaana ku bilaabaysaa waxaa awoodid qof kastoo idin kamid ahna insha allah waxuu awoodi way jiraan marka waxaa kusoo gabagabeynaya intaas dardaarankeygii hadduu ilaahay idmo waxaana idin rajaynaa hal eraba allah ka dhigay inaa meeshaan wax ka faa'iideyn ama aa wax yar ka fikirtiin dhibaatada ay qabyaaladda nagu hayso haddaa maanta la dagaalami weysidna ha sugin dad kaleeta inay la dagaalamaan adiga taada ka gaabisay berita markaa ku dhibtootid ama carruurtaada ku dhibtoodeen ujeedaa adigoon is eerso cid kale ha eersanin laakiinse haddaa maantay aa u istaagto oo aad la dagaalantid wax kasta hadday kaasoo gaari karaan waa caadi insha allah al-ultimo waa ka bixi doontaa waxaasna khibraday kuu noqon doonaan dembi dhaafay kuu noqon doonaan
imtixaan aa baastay kuu noqon doonaan danta guud u istaag dantaada gaar ahaan bis ha fiirin danta guud u istaag hadduu ilaahay idmo adduunkan intaa joognan insha allah kuwii wanaaga dhinaca wanaaga ah lagu tiriyo allah nagu daro aakhiran hadduu ilaahay idmo jannatul firdaws allah nagu kulmiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh